waaxda tiknoolajiyadda waa mid ka mid ah waaxyaha maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee Xamar. waxaa loo aasaasay baahi xooggan oo ka jirtay dhinaca horumarinta tiknoolajiyadda. waxay fududeysaa isticmaalka tiknoolajiyadda la haysto iyadoo ka tala bixisa sidii lagu heli lahaa tiknoolajiyad cusub oo fududeysa hirgelinta dhammaan howlaha ay qabtaan waaxyaha kala duwan ee dowladda hoose iyo gobolka Banaadir. waaxdani ayaa qabata howlo ay ka mid tahay qiimeynta, qorsheynta, hubinta iyo hiigsiga loo maro xog ururinta iyo kaydinta macluumaadka yaala gobolka Banaadir iyo xarumaha dowladda hoose iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyadda. sidoo kale waxay cilad bixisaa kombiyuutarada iyo shabakadaha isku xiran ee yaala maamulka gobolka Banaadir iyadoo dhinaca kale u taagan ilaalinta iyo xifdinta amniga tiknoolajiyadda. haddaba si aan wax badan uga ogaano waaxda tiknoolajiyadda waxaa iminka agaasimo ka ah mudane Maxamed Cabdiraxmaan Yabarow. waxa uuna ugu horeyn ka sheekeeyay horumarada muddada uu joogo ay ku talaabsadeen iyo isbedelada uu ku soo kordhiyay waaxda tiknoolajiyadda waa waax aad u ballaaran oo isla markaana maamulka gobolka guddoonka sare ah. afarta qayboodna aan la shaqeyno sida maaliyadda, sida amniga, sida xooghaynta arrimaha bulshada. waaxdani markaan imid wax badan ayaa isbedel aan ka sameynay iyo shaqaalahan tababarro aan u sameynay, trainino aan u sameynay. waxaan wax ka bedelnay shaqooyinka fara badan sida emailada oo waagii hore la isticmaali jiray Gmail, haddana waxaa la isticmaalaa BRA si oo ninka dambe oo imaanayo oo ugu wado shaqooyda meesha ay taagneed oo ka socoto. waxaan kaloo sameynay waqti aan joogay oo gaaban website-ka aan fadhiisinay oo hadda laga shaqeeyo oo website-ka markasta la soo saaro wax qabadka gobolka Banaadir sida dhismaha aan ku faano, sida tiknoolajiyada oo wax walba casriyan aan ku sameynay, sida kombiyuutarada aan ku sameynay. agaasimo Yabarow ayaa xusay in markii uu xafiiska yimid uu sidoo kale xoojiyay wada shaqeynta kala dhaxeysa waaxdiisa iyo 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo deegaanada ku xeeran iyagoo ka caawiya xagga farsamada tiknoolajiyadda sida ciladaha kombiyuutarada iyo wax kasta oo faa'iido u ah gobolka Banaadir. waa 17 degmo iyo 3 degmo oo hadda aan mar dhow la magacaabay. intaba waa ka shaqeynaa, shaqaalahana waa u dirnaa. qaybaha kombiyuutarada iyo tiknoolajiga ayaan kala shaqeynaa, networking ayaan kala shaqeynaa, wax qabadka canshuurahan kala shaqeynaa. wax walba oo ma arkino oo wax u tari karo gobolka waa qabanaa. mar uu agaasimaha tiknoolajiyadda iyo logistikada gobolka Banaadir ka hadlayay waxyaabaha ay hiigsanayaan, waxa uu tilmaamay in yoolkooda uu yahay sidii xafiiska duqa Muqdisho loogala socon lahaa dhammaan maamulka gobolka Banaadir iyo degmooyinka caasimadda si halkaasi loogala socdo shaqooyinka maalinlaha ah ee laga sameeyo arrimaha dhaqaalaha, amniga, ganacsiga iyo falal dambiyeedyada ka dhaca caasimadda iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyadda. hiigsigayga oo dhow waa in wada shaqeyn iyo adkeysi iyo wada jir inaan ku wada shaqeyno. mustaqbalka dhowna waxaan rabnaa inaan isku wada xirno degmooyinka gobolka Banaadir iyo gobolkaba si aan shaashada ugu fiirno dhaqaalaha, ganacsiga, maanta wixii dhacay ay dambiyada oo fal dambiyeedka oo degmooyinka ka dhaca kulli inaan ka aragno shaashada oo ku dhaxtaalo gudoomiyaha gobolka Banaadir si oo subaxii markuu arko warbixinta intuu sugayo inuu TV-gaas fiiriyo oo arko wax qabadkii oo degmooyinka wax walba oo ka yimaado. ugu dambeyn agaasimo Yabarow ayaa ku celceliyay in tiknoolajiyadda ay maanta tahay waxyaabaha muhiimka u ah nolosha, sidaas darteedna uu duqa Muqdisho ahmiyad weyn uu siinayo in la sii ballaariyo adeegyada tiknoolajiyadda ee gobolka Banaadir loogu talagalay. taladeeda maanta waxay tahay in si fiican loo horumariyo oo gobolkana runtii tiknoolajiga waagii hore iyo hadda waa isbedelay, in fiiro gaar ah loo yeesho oo talooyin fara badan la hiigsado. ayaan rajeynayaa inuu gudoomiyaha qiimo weyn oo u leeyahay tiknoolajiyada inuu u waco oo waxyaabo xog badan oo ka wareysto. bilowgii sanadkii 2016 ayay ahayd markii maamulka gobolka Banaadir uu si rasmi ah uu wax ugu magacaabay arrimaha tiknoolajiyadda
iyadoo ay jirtay baahi weyn oo loo qabay. waaxda tiknoolajiyadda maanta waa mid ka mid ah waaxyaha ugu muhiimsan ee ka howlgala maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar. jamaal cabdinaasir, warbaahinta codka caasimadda.